taajirnimada waa waxaan raadin dhammaanteena. Maanta waxaan ka hadlaynaa shakhsiga labaad ee ugu hantida badan dunida, qodobada uu raacay sida uu hanti ku yeesho. Maanta waxaan ka hadlaynaa Jeff Bezos. Waa shakhsiga labaad ee ugu taajirsan caalamka, wuxuuna milkiile iyo madax ka yahay mid ka mid ah shirkadaha ugu guulaha badan uguna caansan ee caalamka. waa shirkadda Amazon. Hantidiisa maanta waxaa lagu qiyaasaa 239.4 milyan doolarka Mareykanka ah. Kaliya waxaa ka lacag badan Elon Musk oo ah shakhsiga ugu hantida badan caalamka. Ma ahan bunbunin in la dhaho shirkadda Amazon ma guulaysan lahayn haddii aysan ahaan lahayn dadaalka adag ee uu bixiyey Jeff Bezos. Bakhaar lagu keediyo badeeco ama alaab in loo bedelo shirkad caalami ah wax sahlan ma ahan. Waxay u baahan tahay maskax badan, hal abuur iyo in khatarta loo bareero. Waxaa sidaas dhahay saxafiga lagu magacaabo David Parker oo mar qabtay barnaamij uu ugu magac daray Inside the Mind of Jeff Bezos. Jeff Bezos hamigiisa kuma koobnin oo keliya inuu sameeyo hal abuur ganacsi, ee wuxuu rabay inuu ka dhabeeyo riyada uu nolosha ka lahaa. Balse su'aasha muhiimka ah meesha taala waxay tahay sidee ayuu horumarkan sidan u weyn u gaarsiiyey shirkadda Amazon. Waxaan ka dhigaynaa qodobo insha Allah taala. Halkan waxaan ku soo qaadan doonaa 9 qodob oo u horseeday in Jeff Bezos uu guushan sidan u weyn gaarsiiyo shirkadda Amazon. qodobka koowaad, dhibaato kasta xal ayay leedahay marka si sax ah loogu fikiro, hal abuurna lala yimaado. Jeff Bezos marka uu yaraa wuxuu aaminsanaa aragtida la xiriirta awoodda hal abuurka. Wuxuu xilliyada xagaaga waqti la soo qaadan jiray awowgiisa oo ku nool tuulo yar oo ku taala gobolka Texas. Marka uu tago guriga awowgiis wuxuu u hagaajin jiray wax walba oo farsamo iyo hal abuur u baahan. Awowgiisa ayaa maalin galay shil gaari, wuxuuna ku waayay mid ka mid ah farha gacmihiisa aan dhahno suulkiisa, taasoo ku qasabtay inuu galo qaliin loogu sameynayo suul macmal ah, halkaasoo lagu qaatay lacago aad u badan. Arrintaas Jeff Bezos waxay ku dhalisay in xalinta dhibaatooyinka in lagu helo lacago aad u badan. Sheekadan ilaa iyo maanta ayuu ka sheekeeyaa, wuxuuna ku sheegaa inay tahay waxa ku riixay inuu heerkan uu maanta taagan yahay soo gaaro. Qodobka labaad, qofka macaamilka ah ayaa mar waliba saxan. Tom Alberg ayaa ku tilmaamay agaasimihii hore ee shirkadda Amazon, Mr. Bezos, mid u dhashay sida loola dhaqmo macaamiisha. Dunida ganacsiga casriga ah, macaamiisha waa halbowlaha kobaca shirkad kasta. Fikraddan ayaa ah mid si weyn loogu dhex arkay falsafadda Jeff Bezos. Tom Alberg oo horey ugu tirsanaa guddiga agaasinka shirkadda Amazon wuxuu Bezos ku tilmaamay nin si dabiici ah ugu dhashay fahamka iyo qancinta macaamiisha. Mr. Bezos wuxuu aaminsan yahay in guusha ganacsiga aysan ku koobnayn kaliya samaynta faa'iido, balse ay tahay in macaamiisha la siiyo mudnaanta koowaad. Maskaxdiisa waxaa mar walba ka dhex guuxi jiray su'aasha ah sidee ayaan ku qancin karnaa macaamiisha. Waxa uu rumaysnaa in ganacsiga waara uu yahay midka sida dhabta wax ugu bedela nolosha dadka. Aragtidaas ayaa ka dhigtay Amazon mid ka mid ah shirkadaha ugu qiimaha badan caalamka, halka Jeff Bezos uu noqday hogaamiye dhaxalgal ah oo wax ka bedelay sida ganacsiga casriga ah uu shaqeeyo. Hadalkiisa caanka ahaa ee ahaa haddii aad lacag samayso wax badan ayaad qaban kartaa ayaa muujinaya sida ay ugu gooneed inuu noqdo shakhsi milyaneer ah. Maantana waa mid ka mid ah 10 shakhsi ee ugu hantida badan caalamka. Qodobka saddexaad, dib u laabo kadibna hore isu balaari. Sunil Gupta oo ahaa macallin dhaqaalaha ka dhiga jaamacad ku taala waddanka Ingiriiska ayaa hal abuurka Amazon ku tilmaamay wax soo saar cusub iyo adeeg uu ku qeexay dib u noqo kadibna hore isu balaari, taasoo ku micneeyay in dib loo laabto oo la darso lana ogaado waxyaabihii sababay dhibaatooyinka ay wajahayso shirkadda, kadibna la xaliyo dhibaatooyinkaas oo hore loo socdo. Qodobka afraad, mar walba u dhaqan sida maalintaadii ugu horreysay ee shaqada, taasoo micneedu ah in mar walba aad joogtayso dadaalka oo aad sii wado baahida iyo oonka loo qabo hal abuurka iyo guusha ganacsiga. Tani waa falsafadda uu Jeff Bezos ku dhisay shirkadda Amazon. Sanad kasta, warbixinta sanadlaha ee Amazon waxaa lagu soo daraa warqadihii ugu horreeyay ee Jeff Bezos uu qoray dadkii shirkadda saamiga ku lahaa. Midani waxay xusuusin u tahay dhammaan shaqaalaha iyo maamulayaasha shirkadda in hal abuurka iyo dadaalka aanan dhammaad lahayn, balse ay mar waliba tahay in shirkaddu u shaqayso sida bilow cusub oo kale. Bezos wuxuu aaminsan yahay in shirkaduhu ay bilaabayaan inay hoos u dhacaan marka ay dareemaan raaxo iyo xasilooni. Sidaa darteed wuxuu mar walba shaqaalaha shirkaddiisa ku dhiirigelin jiray inay mar walba u fikraan sidii dad bilaabaya ganacsi cusub oo leh rabitaan, dadaal iyo hal abuur joogto ah, taasoo muujinaysa siday muhiim u tahay
in la joogteeyo ruuxa halabuurka loona arko in shirkaddu ay weli ku jirto marxalad hoose. falsafadan ayaa ka caawisay Amazon inay noqoto mid ka mid ah shirkadaha ugu horeeya caalamka, iyadoo mar walba ay si joogto ah u raadinaysay fursad cusub oo ay ku qanciso macaamiisheeda. qodobka shanaad, ka awood badi cabsida. sanadkii 2000 markii bogagga internetka ay si xawli ah u soo kordheen, shirkadda Amazon waxaa soo food saartay halis aad u daran. Bezos wuxuu u bareeray halista markaasi jirtay, wuxuuna shirkadda Amazon u furay dadka caalamka jooga inay maalgashan karaan. arrintan waxay ahayd tallaabo lama filaan ah oo halis badan lahayd, balse wuu ku guulaystay. go'aankaas uu qaatay ayaa gacan weyn ka geystay kobaca shirkadda Amazon, waxayna noqotay mid ka mid ah xeeladaha ganacsi ee ugu saameynta badan ee uu qaaday. qodobka lixaad, guuldarrada waa waddada guusha. guuldarooyinku waa qayb ka mid ah safarka horumarka nolosha, waxaana inta badan noqdaan tallaabooyin lagu gaaro guusha. in badan oo ka mid ah halabuurayaasha iyo hogaamiyaasha ganacsiga sida Jeff Bezos waxay u arkaan guuldarrada fursad waxbarasho oo qiimo leh, halkii ay ka noqon lahayd caqabad joojin karta riyooyinkooda. marka mashruucu guuldaraysto, micnaheedu ma ahan in dadaalkaas uu khasaaray, sababtoo ah guuldarrada mashruucaas waxaad ka baranaysaa khaladaadkaad samaysay, berina waxay kuu noqonaysaa waddadii aad ku guulaysan lahayd. Jeff Bezos oo ahaa aasaasaha Amazon wuxuu caan ku ahaa inuu si geesinimo leh khatarta u wajaho, taasoo aan keliya muujinayn dhiiranaantiisa, balse sidoo kale muujinaysa sida ay u go'an tahay inuu ka faa'iidaysto khaladaadkiisa iyo guuldarooyinkiisa si uu ugu tallaabsado horumar ballaaran. qodobka 7, weligaa ha ka qoomamayn waxaad isku dayday. qofka go'aansada inuu isku day sameeyo xitaa haddii uu guuldaraysto wuxuu mar waliba ka horeeyaa kana wanaagsan yahay kanaan isku day samayn ama kanaan isku dayin. inaan ka baqin guuldarrada waxay barbar socotaa inaanan marna ka qoomamayn isku dayga aan samaynay. middani waa fikrad ay hogaamiyaal badan qabaan. Jeff Bezos wuxuu arrintan ugu hadlay mar uu dood la yeeshay mid ka mid ah madaxda shirkadda daabacaadda, wuxuuna dhahay, markaad ka fikirto waxyaabaha aad ka qoomamayn doonto marka aad gaarto da'da 80 jir, waa waxyaabaha aadan weligaa samayn. waa dhif iyo naadir inaan ka shalayno waxyaabahaan samaynay, xitaa haddii aan ku fashilannay ama aanan u samayn sidaan u rabnay. hadalkan wuxuu xambaarsan yahay xigmad aad u weyn. isku dayga la sameeyo xitaa haddii uusan natiijo wacan dhalin wuxuu caddeen u yahay geesinimada qofka iyo rabitaankiisa inuu hore u socdo. haddii aad guulaysato, guushaada ayaad u dabaaldegaysaa. haddii aad guuldaraysato, waxaad heli doontaa waa aragnimo kuu sahlaysa inaad mar labaad isku daydo si aad u hesho natiijo ka fiican natiijadii aad hore heshay. qodobka 8aad, muuji fikirkaaga. milkiilaha shirkadda Amazon wuxuu aad u qadariyaa fikradaha kala duwan ee kaga imaanaya dadka ay shaqo wadaaga yihiin, wuxuuna aaminsan yahay inay wanaagsan tahay in la yeesho dood daacadnimo ku dhisan, shakhsi walbana inuu muujiyo fikirkiisa marka la fadhiyo miiska shirarka. laakiin marka ay timaado go'aan qaadashada, wuxuu ahaa shakhsi go'aan adag qaata. Brad Stone oo ahaa qoraa wax badan ka qoray Bezos wuxuu rumaysan yahay in Bezos uusan dimuqraadi aaminsanayn markay timaado in go'aanka ugu dambeeya la qaato xilliyada la fadhiyo shirarka guddiga fulinta ee shirkadda. taa beddelkeeda wuxuu aaminsan yahay in hogaamiyaha uu mararka qaar u baahan yahay inuu go'aano adag gaaro, go'aano gaar ah, xitaa haddii aysan dhammaan xubnaha kale ku raacsanayn. rag badan oo saxafiyiin ah ayaa sheegay in shirkadda Amazon ay aad kaga duwan tahay shirkadaha kale ee la midka ah, sababtoo ah waxay isku darsatay 2 arrimood oo mararka qaar ay adag tahay in laisku keeno. arrinta koowaad, dhagaysiga fikradaha kala duwan ee dadka kale. arrinta labaad, go'aan qaadashada adag ee milkiilaha shirkadda. qodobka 9aad, qorsheyn mustaqbalka fog. qorsheynta mustaqbalka fog waa tiirka ugu muhiimsan ee guusha shirkad kasta. maaha oo keliya in la sameeyo qorshe gaaban oo natiijo degdega laga filayo, balse waa in la yeeshaa aragti fog oo hagta horumarka mustaqbalka shirkadda. milkiilaha shirkadda Amazon wuxuu lahaa dulqaad iyo adkaysi aan caadi ahayn, taasoo ka caawisay inuu Amazon ka dhigo shirkadda weyn ee ay maanta tahay. dulqaadkaas iyo himiladaas fog waxay Bezos u sahleen inuu sameeyo maalgelino waaweyn, xitaa kuwa ay dad badani u arkeen inay yihiin kuwa halis ah ama aan degdeg loogu helayn wax faa'iido ah. tusaale ahaan, adeegyada Amazon Web Service iyo Amazon Prime waxay markii hore u muuqdeen fikrado su'aalo badan laga keenay faa'iidadooda, laakiin aragtida fog ee Bezos ayaa ka dhigtay kuwa maanta xudunta u ah dakhliga shirkadda Amazon. sidaas darteed, qof kasta oo raba inuu guulaysto, ha ahaado ganacsade, hogaamiye ama shakhsi caadi ah, wuxuu ka faa'iidaysan karaa falsafadda milkiilaha shirkadda Amazon. qarniyadii hore,
qowmiyadaha carabta ee saxaraha ku noolaa waxay dhaqaale ka samayn jireen laba arrimood. Arrinka koowaad ganacsi, arrinka labaad farsamo. Waxay u safri jireen masaafooyin aad ula dheer si ay u abuuraan fursado cusub. Safaradaas waxay ka barteen in qofka dhaqaalaha raadinaya ama qofka dhaqaaladoonka ah inuusan ku sugnaan hal meel oo keliya, balse mar kasta uu raadiyo fursado cusub si uu u sameeyo dhaqaalo fara badan. Sidoo kale waxaa la mid ahaa dadkii hore ee Giriigga iyo Roomaanka. Dhaqaalaha waxay u arki jireen waddo loogu baxo addoonsiga. Qofka aan hantida kasban wuxuu noqon jiray mid ku tiirsan dadka kale. Sidaas darteed waxay xoogga saari jireen wax soo saarka, dhismaha, iyo barashada sida uu suuqa u shaqeeyo. Dadkaas waxaa laga dhaxlay xigmad ah in dhaqaalaha uusan qofka fadhigiisa uga imaan, balse dhaqaalaha uu kasbado qofka shaqeeya, dadaala, qorshe la imaada, aana ka cabsan tijaabinta fikradaha cusub ama waxyaabaha cusub. Sidoo kale waxaa la mid ah taariikhda dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan reer guuraaga. Waxaad ku baranaysaa in dhaqaalaha uu ku dhisan yahay adeegsiga caqliga, ilaalinta hantida, iyo u diyaargarowga caqabadaha. Micnaha qofka xoolihiisa si nidaamsan u maamuli jiray wuxuu ka badbaadi jiray abaaraha, wuxuuna ka hormari jiray bulshadoo dhan. Tani waxayna tusinaysaa in mid ka mid ah fursadaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha inuu yahay maamulka wanaagsan iyo ilaalinta waxa gacantaada ku jira. Dadkaas hore waxay lahaayeen aragti fog oo ku saabsan sida nolosha loo hormariyo. Waxay ogaayeen in hantida aysan qofka u imaan iyadoo socota, balse qofka loo baahan yahay inuu u kaco, u socdo, u shaqeeyo sidoo ku heli lahaa. Arrintaasi waxay sababtay in dadkii hore noqdaan dad si wanaagsan ugu xeel dheer ganacsiga, isla markaasna kaalin weyn ka qaata isku socodka ganacsiga dunida xilligaas. Ganacsiga ay samayn jireen wuxuu ahaa mid ku dhisan isku xirnaan, geesinimo, iyo fahamka suuqa. Waxay ka ganacsan jireen xoolaha, macdanta, waxyaabaha udgoon, dharka, iyo waxyaabaha farshaxanka ah oo ay iga farsamayn jireen. Qof walba oo qarnigaas noolaa wuxuu ogaaday in haddii uu barto xirfad farsamo ama haddii uu aado safar ganacsi uu si fudud ku samayn karo dhaqaalo xooggan. Haddaba cashirka ugu weyn ee laga dhaxlay taariikhdooda ayaa ah in horumarka dhaqaalaha uusan ku imaan meel iska fadhiga iyo caajiska, balse uu ku yimaado marka qofka uu fahmo in dhaqaalaha lagu kasbado ficil joogto ah, raadinta fursadaha cusub, barashada xirfado faa'iido leh, iyo geesinimo lagu wajaho suuqyada kala duwan. Inkastoo maanta dunida casri noqotay, haddana waddadii dadkii hore u raaceen dhaqaale samaynta ee ahayd fikirka wanaagsan, shaqada joogtada ah, xirfadda, ganacsiga, iyo u maamulidda hantida sida ugu wanaagsan ayaa weli ah jidka ugu habboon ee qof walba maanta guul dhaqaale ku gaari karo. Waxaa jirta xikmad dadkii hore laga soo guuriyey: ha sugin fursad ee isku day fursadda inaad adiga abuurato. Ha isku halayn nasiibka oo keliya ee dadaalkaaga ka dhigo nasiibkaaga. Runtii waa xikmad aad u xeel dheer. Markaan aan soo qaadano tallaabooyin muhiim ah oo ku horseedi kara inaad dhaqaale si sahlan aad ku samayso. Tallaabada koowaad, fikir dhaqaale oo saxan la imow. Markaad rabto inaad dhaqaale aad samayso, waxa ugu horeeya ee laga rabo ayaa ah inaad la imaado fikir cad oo sax ah oo leh ujeedo iyo jiho. Fikirka wanaagsan waa sida abuurka lagu beero dhulka. Haddii uu saxan yahay oo si fiican loo daryeelo, wuxuu dhaliyaa miro badan oo faa'iido leh. Fikirka dhaqaalaha ee saxda ah wuxuu ka bilaabmaa inaad fahanto waxaad rabto, sababtaad u rabto, iyo sida ugu macquulsan ee aad ku gaari karto waxaad rabto. Marka fikirkaas uu kuu caddaado, waxaa xiga inaad u beddesho ficil muuqda. Tusaale ahaan, haddii aad fikir ka haysato inaad bilowdo ganacsi yar, ha ku ekaan fikirkaas oo keliya, ee bilow inaad ururiso macluumaad ku saabsan ganacsigaad rabto inaad bilowdo. Faham suuqaad gelayso, diyaarso lacagtii aad ganacsiga ku bilaabi lahayd, kadibna tallaabada ugu horreysa qaad, kuna bilow ganacsigaaga si tartiib tartiib ah. Fikirka wanaagsan ee la socda ficilka joogtada ah wuxuu kuu furaa waddooyin cusub. Wuxuu kaa caawiyaa inaad ka gudubto caqabadaha oo aad gaarto heerka dhaqaale ee aad rajaynayso. Tallaabada labaad, barashada iyo fahamka suuqa. Sidaan wada ognahay, lacagta waxaa laga helaa meesha ay lacagta taalo. Waxaana muhiim ah in qof kasta oo dhaqaale doon ah uu fahmo halka ay tahay inuu indhaha ku jeediyo si uu dhaqaale u sameeyo. Suuqa waa meesha fursadaha dhaqaale ay ku dhuuntaan, waana meesha qofka maskaxda furan uu ka heli karo waddooyin uu ku abuuro dhaqaale. Barashada suuqa waxay ka bilaabataa inaad fahanto dadka baahiyahooda, dhibaatooyinkooda, iyo waxa ay rabaan in loo xaliyo.
suuqa ma ahan oo keliya meel badeecooyin la isku dhaafsado ee waa meel fikradaha wanaagsan lagu beddesho lacag. Waa meel la isugu yimaado si qof walba uu u helo wax uu rabo. Waa meel laga helo dhibaato walba xalkeeda. Marka haddii aad barato sida loo xaliyo dhibaatooyinka dadka kale, waxaad fahantay halka fursad ay ka jirto. Fahamka suuqa sidoo kale waa inaad ogaataa isbeddelada suuqa ka dhaca, sida badeecooyinka loogu doonista badan yahay suuqa, badeecooyinka aan qiimaha ku lahayn suuqa, maxay dadka xiiseenayaan, maxaa ka baxay suuqa. Arrimahaas oo dhan waxaad ku baranaysaa inaad ka shaqaysato oo lacag ka samayso fursadaha cusub ee suuqa ka jiraan, halkii aad ku lumin lahayd waqtigaaga meel aan wax faa'iido ah aadan ka helayn. Waxaad ogaataa mar kastoo fahamkaaga suuqa u wanaagsanaado, fursadaha aad aragto way sii bataan. Sidaas darteeda ku dadaal inaad barato ganacsiyada maxalliga ah, adeegyada bulshada u baahan yihiin, shaqooyinka iyo xirfadaha muhiimka ah, sababtoo ah qofkii aqoon yeesha ayaa nasiib yeesha. Talaabada saddexaad, maaray lacagtaad helayso. Lacagtaada haddii aadan si wanaagsan u maamulin, si fudud ayay meel cidlaha kaaga bixi kartaa, adigoo aan ogeyn halka ay martay. Maareynta wanaagsan ee lacagta waa xaqiiqda ugu weyn ee ka dhigi karta qofka inuu noqdo mid dhaqaale sameeya. Sidaas darteed, qofka dhab ahaantii dhaqaalaha sameeya waa kan si wanaagsan u xakameeya dhaqaalihiisa. Faham waxa ku soo gala iyo waxaad bixiso, isla markaasna samayso qorshe cad oo hogaaminaya socodka hantidaada. Maareynta lacagtaada waxay ka bilaabataa inaad ogaato kharashaadka macquulka ah ee aad u baahan tahay inaad maalin walba bixiso, aadna ka fogaato kharashaadka aan muhiimka ku ahayn. Waa inaad ogaataa farqiga u dhexeeya baahida iyo rabitaanka, si aadan u lumin lacag si degdeg ah adigoo aan wax faa'iido ah ka helayn. Sidoo kale waxaa muhiim ah inaad barato kaydsiga qayb ka mid ah dakhligaaga, si ay kugu noqoto difaac wakhtiga adag, ama aad maalgashi ugu samaysato mustaqbalka. Maareynta wanaagsan waa asalka horumarka, waana waxa ka dhigi kara dakhligaaga yar mid aad u weyn. Mar kasta xusuusnow, lacagta sida wanaagsan loo maamulo waa lacag mar walba kororta, halka lacagta aan wax maamula lahayn ama aan si wanaagsan loo maamulin si dhaqsi ah u baabaado. Talaabada afraad, bilow yar oo joogto ah. Dadka inta badan waxaa ku furan degdeg iyo rabitaan ah inay lacag badan geliyaan ganacsi aysan aqoon badan u lahayn, iyagoo rajeynaya inay isla markiiba lacag badan ka helaan. Laakiin khasaarooyin badan ayay kala kulmaan ganacsiyadaas ay sameeyeen. Dadka horey dhaqaalaha u sameeyey ee maanta magaca weyn leh, badankood waxay ka bilaabeen meel hoose, si tartiib tartiib ah ayay ganacsigooda u ballaariyeen. Haddii aad maanta ganacsigaaga aad ku bilowdo badeeco yar ama adeeg kooban, taasi micnaheeda ma ahan inaad faqiir tahay, ee waxay ka dhigan tahay inaad si caqli leh u dhaqmayso. Ganacsiga wuxuu u baahan yahay in la fahmo, la tijaabiyo, lana arko sida suuqa uu ugu falceliyo. Bilowga yar wuxuu ku siiyaa fursad aad ku baranayso waxa shaqeeya iyo waxa aan shaqayn, adigoo khatar weyn aan gelin dhaqaale ahaan. Maalin kastoo ganacsigaaga wax yar aad ku darto, waxaad kordhinaysaa waayo-aragnimadaada, waxaadna dhisaysaa aasaas adag oo mustaqbalka ka caawin kara inuu ganacsigaaga si tartiib tartiiba u koro. Joogteynta yar waxay ka qiimo badan tahay bilaabashada weyn ee khasaaraha daba socda. Horumar kastoo joogta ah wuxuu ka dhigan yahay guul la isku halayn karo, waana waxa ugu muhiimsan ee ganacsi walba u baahan yahay. Markaad barato inaad ganacsigaaga ku bilowdo si tartiib ah oo joogto ah, waxaad dhisaysaa ganacsi muddo dheer jiri kara, adigoo yareynaya khasaarahaaga isla markaasna kordhinaya fursadaha guusha. Talaabada shanaad, raadi dhibaato ka jirta bulshada dhexdeeda, kadibna xal u keen dhibaatadaas. Markaad aragto waxay dadka ku dhibaatoonayaan helidooda, waxaa halkaas ku qarsoon fursad ganacsi oo aad u weyn, sababtoo ah meesha dhibaatada ka jirto ayay fursad ganacsi ka dhalataa. Kelmadahan haddii aan si wanaagsan kugu sharxo si aad si fiican ugu fahanto, micnaha waxaad raadisaa waxa bulshada ay si dhab ah ugu baahan yihiin, laakiin wakhti badan ka qaadata sidii ay ku heli lahaayeen. Tusaale ahaan, waxaad arki kartaa hooyooyin shaqeeya, kuna dhibaatooda inay meel u helaan qof carruurtooda u ilaaliya markay shaqada aadayaan. Haddii aad adiga keento adeeg badbaado leh, qiimo macquul ah leh, oo carruurta lagu ilaaliyo si xirfad leh, waxaad xalisay dhibaato. Waxaad halkaasi ka heli kartaa in dhaqaale joogto ah kaa soo gala. Marmarka qaar dhibaatadu waxay noqon kartaa mid aad u yar oo dadka badankood iska indhatiraan, balse qofka garaadka ganacsiga leh uu arko fursad aad weyn. Tusaale ahaan, xaafado badan waxay ku dhiban yihiin inay helaan biyo nadiif ah oo ay cabaan. Qofkii bixiya adeeg biyo nadiif ah oo ay dadka cabaan guryahoodana ugu geeyo maalin kasta amaba 2 maalmood mar, wuxuu xaliyay dhibaato jirta, wuxuuna halkaas ka samayn karaa dhaqaale aad u badan. Waxaa kaloo jira dhibaatooyin cusub oo ka dhasha isbeddelada dunida maanta. Tusaale ahaan,
dhalinyaro badan waxay ku dhibaatoodaan inay helaan qof ka caawiya siday u shaqayn lahaayeen ama xirfad u baran lahaayeen. haddii qof dhallinyaradaas uu u sameeyo tababar kooban oo ku saabsan sida loo barto xirfad lagu shaqaysan karo, qofkaas wuxuu xalliya dhibaato jirta, wuxuuna halkaasi ka heli karaa dhaqaale wanaagsan. ugu dambeyn, mar walba xusuusnow, dadka uma bixiyaan lacag inay ganacsigaaga ama adeegaaga ay jecel yihiin, ee waxay lacagta u bixiyaan markay arkaan adeegaaga ama ganacsigaaga inuu dhibaatooyinkooda xal u yahay. tallaabada 6: dulqaad iyo sabar. lacag samayntu waa safar dheer. safarkana waxaa muhiim ah in loo sabro loona dulqaato. ma jiro qof maanta taajir ah oo maalmo gudahood taajir ku noqday. dadka maanta aad aragto oo taajiriinta intooda badan waxay soo mareen sannado badan oo shaqo adag ah iyo guuldarooyin dib u dhigay, balse guuldarooyinkaas waxay ugu soo kabteen sabarka iyo dulqaadka. sabar la'aanta waxay qofka ku riixdaa inuu si degdeg ah u raadiyo natiijo wanaagsan, taasoo badanaa keenta khaladaad iyo khasaaro joogta ah. laakiin qofka sabra oo qorshiisa ku adkaysta wuxuu ugu dambeyn gaari doonaa heerka uu rabo. sabarka iyo dulqaadka waa laba awood ee kaa caawin kara inaad sii waddo safarkaaga dhaqaalaha, xitaa markay natiijada wanaagsan ay soo daahdo ama ay xumaato. waana sirta ugu weyn ee dadka guulaystaa. haddii aad rabto inaad kordhiso dakhligaaga, haddii aad jeceshahay inaad keyd samaysato haddana aadan garanayn qaabkaad ku samaysan lahayd, haddii aad rabto inaad tabcato hanti badan, haddii aad qorsheynayso inaad mustaqbalka noqoto shakhsi lacag leh, isku day inaad raacdo borograamkan magaciisa ah Kakebo. waa hubaal inuu kaa caawin doono sidii aad u gaari lahayd hadafkaaga dhaqaale. Kakebo waa borograam ama habdhaqameed hore loogu isticmaalay waddanka Jabaan si loo maamulo dhaqaalaha shakhsiga iyo qoyska, si loo maareeyo nolosha, loona yeesho hanti fara badan. borograamkan waxaa la sameeyey sanadkii 1904, waxaana bilowday haweeney magaceeda la dhihi jiray Hani Motoko oo ahayd haweeneydii ugu horeysay ee suxufi ama wariye ka noqota dalka Jabaan. borograamkan wuxuu diiradda saarayaa xakamaynta kharashaadkaaga, yareynta waxyaabaha aan muhiimka ahayn, iyo kobcinta caadooyinka wanaagsan ee keydinta lacagta. intaan mawduucan ku jirno waxaan ogaanaynaa sidee ayuu u shaqeeyaa borograamkan, hab noocee ah ayaa loo adeegsadaa borograamkan, waa maxay faa'iidooyinka borograamkan uu leeyahay, sidee ayuu u shaqeeyaa borograamkan. borograamkan waa hab fudud oo uu qofka u qorsheynayo miisaaniyaddiisa bil kasta isagoo adeegsanaya xisaab fudud. shakhsiga dakhliga soo gala bishii wuxuu kala qaybinayaa kharashaadka lama huraanka ah ee uu bixinayo bil weliba iyo qayb kale oo keyd ah. kadibna dhammaadka bisha wuxuu qiimeynayaa sida uu isticmaalay dakhliga bisha soo galay. borograamkan wuxuu ku salaysan yahay 4 su'aalood oo muhiim ah, waxaana lama huraan ah inaad 4tan su'aalood si sax ah ugu jawaabto haddii aad rabto inaad ka faa'iidaysato oo aad lacag badan ka samayso dakhligaaga bisha ku soo gala. su'aasha koowaad: waa imisa dakhligaaga bishii? lacagta aad filayso inaad bishaas aad hesho ama mushaharka bishaas aad ku shaqaynayso waa imisa? kow. su'aasha labaad: waa imisa kharashaadka muhiimka ah, kharashaadka lagama maarmaanka ah ee aadan sinna ugu tagi karin ay waajib kugu tahay inaad bixiso waa imisa? su'aasha saddexaad: intee lacag ayaad rabtaa inaad keydsato? micnaha qorshaha lacagtaad rabto inaad meel dhigato oo aad keydsato waa imisa? su'aasha afaraad: sidee ayaad u wanaajin kartaa ama kor ugu qaadi kartaa kharashaadka ku soo gala bil weliba? qalin iyo warqad soo qaado, kadibna isku day 4tan su'aalood inaad ka jawaabto. halkan markaan marayno waxaan ku siinayaa tusaale yar oo jawaab u noqon kara 4tan su'aal. tusaalaha wuxuu yahay bishii waxaad qaadataa $500. kharashaadkaaga muhiimka ah oo aad bixinayso iska dheh waa $450. waxaadna kaysataa $50. marka waxaa kuu soo baxaysa in bil walba aad kaysato $50. inta kale ay kaaga baxaan kharashaadka daruuriga ah. kharashaadka daruuriga dhammaanteen wada naqaanaa waa cunada iyo waxa la cabo, kirada guriga, waxyaaba noocaas ah waa kharashaadka daruuriga ah oo aan sina loo dhaafi karin. marka si aad kor ugu qaado lacagta aad kaydsanayso bishii, waxaa waajib kugu ah inaad kor u qaado dakhliga bishii ku soo gala. sidaa darteed waxaa daruuri ah inaad raadsato, haddii aad haysato hal shaqo labaad inaad raadsato, ama aad barato xirfad cusub kadibna xirfadaas aad ku shaqaysato si aad ugu hesho dakhli ziyaada ah. dakhliga ziyaadahana aad ku darsato lacagaha aad keydsanayso. hab noocee ayaa barnaamijkan loo adeegsadaa? barnaamijkan waxaa loo adeegsadaa 5 qodob. 5taas qodobna waxay kala yihiin: marka hore, qoro miisaaniyadaada bil kasta. 2, go'aanso inaad rabto inaad keyd samaysato. 3, la soco kharashaadka aad bixinayso maalin walba. 4, dhammaadka bisha falanqay sida aad lacagtaada u isticmaashay. 5, raadi waddo kale oo aad ku siyaadiso dakhliga bishii ku soo gala. sidoo kale isku day inaad dhinto kharashaadka aan muhiimka ahayn ee aad bixinayso. borograamkan wuxuu dakhligaaga u kala qaybinayaa 4 qaybood oo waaweyn.
qaybta koowaad waxyaabaha muhiimka ah kuwani waa waxyaabaha laga maarmaanka u ah nolosha sida cuntada cabitaanka kirada korontada iyo biyaha iyo wixii la midka ah qaybtan dadka reer Japan waxay siiyaan mudnaanta koowaad maadaama ayaga la'aantooda nolosha aysan suurtagal ahayn qaybta labaad waxyaabaha fududeeya nolosha waxyaabahan waxay nolosha ka dhigayaan mid sahlan balse looma baahna in lacago badan lagu kharash gareeyo ilaa haddii loo qabo baahi daran tusaale waxaad haysataa $2 waxaad rabtaa inaad aado jaamacadda ama iskuulka halkii aad $2 ku raaci lahayd mooto bajaaj waxaa kugu habboon inaad $1 ku raacdo gaadiidka dadweynaha ay raacaan inta kalena aad kaydsato haddii aysan jirin waxyaabo daruuri ah oo kugu qasbaya inaad raacdo mooto bajaajka sida inaad iskuulkaad ka dahday ama jaamacadaad ka dahday ama aad leedahay imtixaan qaybta saddexaad waxyaabaha aan loo baahnayn kuwani waa waxyaabo sare u qaadaya raaxada noloshaada sida aadista maqaayadaha qaaliga ah gadashada dharka qaaliga ah safarada maalayacniga ah kuwani waxay baabiin karaan lacaga aad haysato oo dhan waxay sidoo kale sababi karaan inaad qaadato deymo fara badan taasoo kugu keeni karta culays dhaqaale bil kasta iyo sanad kasta ee ka taxadar qaybta afaraad waa qaybta ugu muhiimsan waa qaybta lagu yeesho hantida waa inaad bishii kaydsato lacago go'an si aad mustaqbalka ugu faa'iidaysato lacagaha aad kaydsatay waxaad ku maalgashan kartaa mashruuc adiga kuu gaar ah ama waxaad gashan kartaa mashaariic ay dad kale leeyihiin adigoo ka helaya faa'iido 10% ah ama wax ka badan haddaan isla fiirino faa'iidooyinka programkan uu leeyahay programkan wuxuu ka caawinayaa inaad si xakamaysan aad u isticmaasho dakhligaaga wuxuu ka ilaalinayaa dhaqaalahaaga inaad meel cidla aad ku bixiso wuxuu kugu dhiirigelinayaa inaad yeelato hadaf dhaqaale oo qorshaysan wuxuu qoys weliba ka caawinayaa dhaqaalahooda inay si wadajir ah u maamulaan gebgebadii programkan Kakebo waa farsamo fudud balse waxtar leh horena ay dad badan oo reer Japan ah u adeegsadeen si ay ugu kaydsadaan lacagooda programkan wuxuu kugu dhiirigelinayaa inaad si wanaagsan aad u maareyso dakhligaaga adigoo xakameynaya dakhliga ku soo gala bil waliba una qorsheynaya mustaqbalka si xigmad leh haddii aad rabto inaad lacag aad kaydsato isku day inaad raacdo nidaamka Kakebo waa hubaal inuu ka caawin doono si aad u gaari lahayd hadafkaaga dhaqaale insha Allah ta'ala mawduucina maanta halkan ayaan ku ekeenaynaa waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen mawduucan intii mawduuc kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh